madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Cali Daahir Ciid oo la hadlay idaacadda VOA isagoo ka warbixinaya xaaladda maamulka ayaa sheegay in la heshiiyeen madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf dhawaana ay shaacid doonaan qodobada ay ku heshiiyeen labada dhinac. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa sheegay in dhawaan ay qabsoomi doonto xaflad lagu caleemo saarayo madaxda sare ee Galmudug ayna ka soo qayb galayaan Xaaf iyo mas'uuliyiinta ahlul sunna. aniga iyo madaxweynahayna Axmed Gorgor markii la doortay wixii ugu horeeyay ballan qaadnay waxay ahaayeen in aan dib u heshiis samaynayno dhinacyada naga soo horjeedana aan u qancin doono. Labadii koowaad ee aan ku guuleysanana waxay ahayd madaxweyne Xaaf oo rumaantii deegaankaana wax badan u soo qabtay. madaxweynihii soo horeeyay madaxweyne Axmed Gorgorna ahaa oo wax badan tabanayay inaanu tabashadiisii xalino. maantana dhammaan waxyaabihii uu tabanayay iyo waxyaabihii uu doonayayba waanu ka wada hadalnay waanaan ka heshiinay. maalmahan soo socdana waad arki doontaa biyada shaacinta rasmiga hawshaas khilaafkii dhanka annaga iyo madaxweynihii hore naga dhexeeyey waa xaliyey si officially ana waa loo shaacinayaa maalmahan lagu soo aadan. kadib waxaana arrintaa ku dhex wadnay inaanu ayagana aanu la heshiino ahlu sunna wal jamaaca oo ayagana deegaankan badan ka soo qabtay dayo badan oo aanu samaynay oo isku doonaynay waa naga fashilmeen. ugu dambeyn maantay waanu heshiinay waana is-afgaranay. hadda waxaan ku jirnaa diyaar garowga caleemo saar ugu midaysan yahay oo ilaahay hadduu yidhaahdo garbaheena ay kasoo muuqan doonaan madaxdii naga soo horjeeday hadduu aan lahaa Xaaf iyo hadday aan lahaayeen ahlu sunna wal jamaaca ay garbaheena soo fadhiisan doonaan ilaahay hadduu yidhaahdo. dhanka kale Cali Daahir Ciid madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa sheegay in askartii ahlu sunna ee maalin ka hor Dhuusamareeb kula dagaalamay ciidamada dawladda iyo kuwa Galmudug isgarabsanaya lagu biirin doono ciidamada Galmudug. ciidamada ahlu sunna iyo gaadiidkii dagaal iyo hubkiiba la soo wareegay dowlad goboleedka Galmudug waxayna ka mid noqonayaan ilaahay hadduu yidhaahdo ciidamada dowlad goboleedka Galmudug ay ka mid noqonayaan kadib markii tababartay iyo waxaana wanaagin kale lagu sameeyo ciidankeenan Galmudug ayay ka mid noqon doonaan. hadalka madaxweyne ku-xigeenka ayaa imaanaya iyadoo maalmihii dambe dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa ahlu sunna ay ka socdeen gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka inkastoo laga itaal roonaaday madaxdii ahlu sunna.